markii ugu horeysay ee aan yeesho kombiyuutar shakhsi ah waxay ahayd sanadkii 2013 markii aan shido waxa background u ahaa sawirkaas aniga iyo dadka ila midka ah dunida daafaheeda ku kala nool waxaan aaminsaneen in sawirkaas uu yahay mid la sameeyay oo Photoshop ah laakiin sawirkan background ku ah barnaamijka Windows XP waa sawir dhab ah oo laga qaaday meel kamid ah wadanka Mareykanka. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa qisada sawirkan oo ay arkeen in ka badan 1 milyaar oo ruux oo ku kala nool daafaha dunida. laakiin marka ugu horeysa muuqaalkan like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanid. sawirkan magaciisa waa Al-Naciim ama Al-Janna laatiin ahaanna waxaa loogu dhawaaqaa Bliss. markaad si fiican u eegto waxaad u qaadanaysaa in Photoshop lagu habeeyay mana u qaadanaysid in uu yahay mid xaqiiqo ah. dhul cagaaran oo aad u qurxan oo soo taabanaya samada buluuga ah iyo daruuro yaryar oo khafiif ah. muuqaalka wuxuu u eg yahay janno dunida la keenay. aad ay u adag tahay in sawirkan aad marka hore u qaadatid mid dhab ah. balse sawirkan waxaa ka dambaysa qiso la yaab leh. sawirkan waxaa qaaday sawirqaadaha caanka ah ee lagu magacaabo Charles Ore. waxa uuna sawirkan qaaday sanadkii 1996 waxa uu ka qaaday deegaanka Sonoma kana tirsan California Mareykanka. xilli uu ka soo laabtay booqasho uu ku tagay ugu tagay qof ka tirsan qaraabadiisa kuna sii socday magaaladii uu deganaa ayaa indhihiisa waxay qabteen muuqaal aad u soo jiitay taasoo ku kaliftay in uu la soo baxo kaamiradiisa waxaana uu qaaday sawirkan. markii uu Charles qaaday sawirkan maskaxdiisa kuma soo dhicin in sawirka uu qaadayo uu noqon doono sawirka ugu caansan dunida. sidoo kale kuma fikirin in sawirkiisa uu noqon doono sawirka labaad ee ugu qaalisan dunida. sawirka Charles waxaa yaqaana oo daawaday in ka badan 1 milyaar oo dunida ku nool. sidoo kale wuxuu background u noqday nidaamka Windows XP ee shirkadda Microsoft. sanado badan kadib markii uu Charles qaaday sawirkan dhanka kalena shaqaalaha shirkadda Microsoft waxay wadeen diyaarinta olole xayisiin loogu sameynayo barnaamijkooda cusub ee Windows XP. koox khubaro ah kana tirsan shaqaalaha shirkaddan ayaa waxay raadinayeen sawir ku habboon background u noqda barnaamijkooda cusub. waxay raadinayeen sawir ku habboon sawir aan weli horay loo isticmaalin wax xayisiin ahna aan lagu sameyn. mid ka mid ah shaqaalaha wax ka raadinayay sawirka ayaa indhihiisa waxay qabteen ama ku dhaceen sawirka uu qaaday Charles Ore. isla markiiba shirkadda Microsoft waxay la xiriirtay Charles si ay ugu iibsadaan xuquuqda sawirka. xilligaas ama waqtigaas Charles ma awoodin in sawirka uu ku soo diro internetka. sababtaas darteed shirkadda Microsoft waxay Charles ka dhigtay tigidhka safarkiisa si uu sawirka si toos ah ugu keeno. ficil ahaanna taas ayaa dhacday. inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin karin qiimaha rasmiga ah ee Charles looga iibsaday sawirkan, haddana wararka qaar waxay sheegayaan in lacag ka badan $100,000 laga siiyay. balse waxaa la isku raacay in uu noqday sawirka labaad ee dunida ugu qaalisan. dabcan waxaa laga yaabaa inaad isweydiineysaan waa kee sawirka dunida ugu qaalisan. sawirka ugu qaalisan dunida waa sawirka Ren 2 waxaa lagu iibiyey $4.3 milyan. ka baara Google-ka ayaad ka helaysaan. almuhim marka ay Microsoft iibsatay xuquuqda sawirka Charles 25 Oktoobar sanadkii 2001 ama 19 sano ka hor, xilligaas shirkadda Microsoft waxay isku diyaarinaysay in ay soo bandhigto barnaamijkeeda cusub ee Windows XP. barnaamijkaas cusub ee Windows XP shirkadda Microsoft waxay background uga dhigtay sawirka uu qaaday Charles ee Bliss ama Al-Naciim ka doonto ugu yeer. sawir qaaday Charles mar uu wareysi bixinayay waxa uu sheegay in sawirka uu ku qaaday kaamirada Fuji taasna ay ka saaciday in sawirka uu qurxonaado dhanka kalarka iyo tayada. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qisada sawirka ugu caansan dunida sidoo kalena noqday kan labaad ee ugu qaalisan. haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. sidoo kale aragtidiina noogu soo hagaajiyay qaybta commentiga. mahadsanidin.